waxaa nasiib xumo ah xalayto markii aan tagay duugta wax rag ah oo youtuber ah in aniga ka joogay dumarna waxaa ila joogay laba gabdhood oo youtuber ah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلكين بميل بدنيا كجوكتان اسكو سو نقد وناكسن oo wali wixii sala waa anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil ka naga daawanaysan waa Jaabir Jamiil official waa tahay hadii aad nagu cusubtahay soo dhawaad hadaad hor noola joogtayna waad ku maasantahay la jirkaaga aad baan kaga mahad celinayaa. waa tahay asxaabta sharafta leh markuu horeyso waxaan ka cudur daaranayaa maqnaashiyaha ama gaabka ku jiray maalmahan channelkayga aanan waxba soo gelinin runtii waa iska mashquul adduunyo YouTube-kan wuxuu u baahan yahay sida hore ugu sheegay waqti u gooni ama xilli u gooni waa tahay waxaan rabaa inaan wax yar ka yara taabto arinka aad u qabsada social media xalayto ilaa iyo saakay aniga subax bay ii tahay subaxnimo ii tahay xalay runtii aniga ciyuba iska seexday oo waan daalanaa saakay markaan soo kacay waxaan arkay social media ama TikTok meel walba oo aad arinkan loo hadalhayo arinkan ayaan rabaa marka inaan laba eray kaliya aan ka iraahdo muuqaalka inuu igu dharaadana ma rabi insha Allah. marka ugu horeyso waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaashay Zamzam wiilkeedii ka saqiiray waxaan leeyahay walaashay saqiir jannad Allah kaaga dhigo ilaahayna qalbiga ha ku qaboojiyo. runtii Zamzam arinka iyada ay ka cabanayso oo ahaa in la soo booqan waayo in isbitaalka loogu tagi waayay horta runtii waxaan ka mid ahay dadkii booqday u tagay soo arkay soo xog wareystay ayaan ku jiraa 2 bilood ka hor waxaan ku booqday isbitaalka markii aan ku booqdayna waliba YouTube ayaan soo geliyay video ayaan ka soo diyaariyay kan u tagay maalinkaas isaga ah waan is wareysanay wiilka xaaladiisan ka wareystay aad ay rajadeedu u fiicneed aad wiilkeedu u caafimaaday waxay maalinka iyada ah markii aan ka wareystay xaaladda cunuga waxay ii sheegtay in cunuga isbitaalka uu ka soo bixi doono dhawaan haduu Ilaahay yiraahdo oo uu caafimaaday laakiin daawooyin iyo wax uu qaadan doono koleeytu muuqaalka dib hadaa u raacdid waa soo heli kartaa intan waa idinka tusin doonaa insha Allah. 2 bilood ka hor ayaan u maleynayaa inay tahay in muuqaalkaas aan la soo duubay runtii maalinkaas iyada ah waa la soo fariistay aad bayna maxalidada iga xog warantay runtii qofka bini aadanka ah markii uu xanuunsado ama qof markuu ka xanuunsan yahay waliba uguma sii jirto markii ubadka qofka uu xanuunsan yahay way ka xanuun badan tahay marka qofka uu ka xanuunsan yahay xitaa waxaa lagama maarmaana inaad qofkaas u tagto oo sabarsiiso oo aad yani waqti la soo qaadato la soo sheekayso يعني runtii qofkii wuxuu dareemayaa nafis fara badan wuxuu dareemayaa in agtiisa yani wax weyn qiimo weyn aad ka leedahay aniga runtii maalintan tagayay maalin jimca ayay ahayd oo maxaa la yiraahdaa aan booqanay aniga kaligay ma aanan booqanin waxa ila booqday walaalkay yar saaxiibo aan nahay Cabdiraxmaan Wasac oo ila booqday oo ila tagay oo isbitaalka asaga yaqaanay marka alxamdulillah rabbil caalamiin waan booqanay waan u tagnay xogtii ay iga warantay ama xogtii ay siisayna waxa ugu wanaagsan ay ahayd in cunugu uu caafimaadi doono dhawaan oo isbitaalka laga soo saari doono kadibna maxaa la yiraahdaa ay banaan ku soo bixi doonaan xaafadda iman doonaan ka iyada jimcay ahayd waa jeclaa in codkeeda aan soo daayo mikrofoonkan hadda halkan igu xiran baan muuqaalka markaan duubayay aan ku duubay caadi ayaan ila ahaa muuqaalka maalintaasna aad iyo aad waqtiga yani uu kulaalayay oo maalin jimca ayay ahayd maanta oo kale ayay ahayd salaadii khudbadana way taagneed oo xilli duhur ayay ahayd duhurkaas oo soo cararayay kadib xaafadda markaa imaaday muuqaalkii edit garay aan isiri codkeedii lama maqlayn laakiin wax alaala waxay i tiri iyo sida hadalka igu soo koobtay aniga ayaa cod dul saaray oo soo daayay marka alxamdulillah maalinkaas markay noogu soo dhamaatay kadib xaafadda ayay timid xaafadda markay imaatay kadibna yani waa ula socday maalinba maalinta ka dambaysa xaaladda cunugeeda waa weydiinayay inuu fiican yahay ii sheegaysay waa iska qof maama ah يعني qalbigeeda mar walba waxay ka raadinaysaa maalin cunugaagu ku soo fiicnaan doona oo dadka agteeda ku nool ama hareeraheeda ku nool ayaa looga baahan yahay
والحمد لله دي ugu dambeyn horta maanta cunugaas wuxuu noqday saqiir ka saqiiray gabadhaas aan leeyahay saqiir jannad Allah kaaga dhigo ilaahayna ku booga dhayo insha Allah aniga shalayto waa maqnaa waxaan ku maqnaa magaalada oo waxaan ka imaaday 6dii maqribnimo marka ay ahayd ayaa imid markaan imid wallaahi waxaan islahaa waa la duugay wiilka waayo wiilka geeridiisa waxay ahayd habeennimadii xilli dambe ayaan arkay isla markii aan arkay waxaan kala hadlay qadka oo aan uga tacsiyadeeyay telefoonka ma wici kartid xilli subaxay markaas noo ahayd markii arkay subaxii khamiista ayay ahayd telefoonka ma wici kartid oo qof maanta xalay wiilkeedii ka geeriyooday way adag tahay telefoonkeeda inay ka qabato ama ay ismaqashaan way adag tahay marka qoraal ahaan ama text message ahaan ayaan ugu qoray codna waan u duubay kadib dee maxaa la yiraahdaa waxaan islahaa marka maanta duhurkiiba waxaa laga yaabaa in yani meedkaas la aaso nasiib wanaag anoo usoo cararayo islah duhurka ka gaar ayaa qof ismaqalnay oo markaa ka agdhowiyada wuxuu ii sheegay in weli meedka aan la aasin oo maqribka la aasi doono waa imid xaafadda anigoo daalan oo mashquul ah oo maalinka iyada ah banaanka aan ku wada maqnaa subaxisaan u baxay yani ku maqan magaalada waan imid isla markii waan isdiyaariyey horaan ka baxay oo waxaan duugti inaan ka qayb galo iyo janaasada cunuga lagu tukanayay alxamdulilah ilaahay wuu i haleesiiyey inaan ka qayb galo janaasadaas inaan kula tukado intii ay kula jirto isbitaalkana ilaahay wuu i haleesiiyey inaan u tago oon booqdo oo isbitaalka ku booqdo alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa taa mahad ku leh bini aadanka sidiisana markii uu xanuunsado waxa kaliya u baahan yahay aan isdhihi kara ama laga xanuunsado in la booqdo wejiga la geeyo seetaha la yiraahdo aad bay muhiim u tahay annaga bini aadan haddaan nahay sideenana ilaahay wuxuu yidhi isu naxariista oo carlada iskuga naxariista ama dhulka iskaga naxariista samada anna idinkaga soo naxariisanaya ilaahay marka subxaanahu watacaala gabadhaas iyada ah ha u booga dhayo ilaahay maxaa la u qalbi qaboojiyo waajibka lagugu leeyahay mar walba waxaa roon waqtigii lagugu leeyahay inaad gudatid qof walbana hoosha aad qabanaysid mar walba waqti ayay leedahay xilligii haddii laga soo tagona waxay fiican tahay aana daatay dabadood la qabay baa la dhahay in aad wixii aad gaartay oo aad ka soo tagtay inaad dib aad ka saxdo waxaa nasiib xumo ah xalayto markii aan tagay duugta wax rag ah oo youtuber ah in aniga ka joogay dumarna waxaa ila joogay laba gabdhood oo youtuber ah ragna waxaa ka joogay aniga kaliya qof kale oo aan arkay ma jirin soo marka waxaa aad u fiicnaan lahayd maadaama aad haleeli weyso booqashadii cunuga markuu xanuunsanaa in at least aad janaasadii kasoo qayb gasho iyo duugti taas runtii waxay aad yani u dhayi lahayd boogtii ahayd uu soo booqan waay hebel ama hebel ugu imaan waaye in ay dhayi lahayd ayaa taas baan isleeyahay laga yaabee dadka qaar inay isku celiyeen shalay markuu xanuunsanaa ma aadan tegin maanta geeridiisa miyaa tegaysaa laakiin taas aniga waxaan aaminsanahay in ay dabiibi lahayd haddii shalay aad maqneed waxaad kasii daran duugtin inaadan imaanin cunugii markii uu xanuunsanaana in aadan tegin anyway gabadhaas walaasheen ah waxay nooga baahan tahay duco aan u duceyno ilaahay ha u booga dhayo aniga maanta uma soo fadhiisana cid eedeeyo uma soo fadhiisana cid leeceeyo gabadhaas walaashay ah waqti waan isu weynay shalay waxyaaba ugu muhiimsanaa aan u aaday waxay ahayd inaan iyadana aan u tagon sabarsiiyoon dhaho sabar iimaan allaha kaa siiyo walaashay laakiin isma haleelin saasay tahay haddana telefoonna kama wacin waayo waajibka dadkana way wada gudanayaan adiga waajibkaaga inaad gudato taasaa muhiim ah aniga waxaan ku gudso waajibkayga waan tagay duugta ka qayb galay iyadiina waan la hadlay fariin baan u diray bis intaas waaye qasab ma ahan qofka inaad ismaqashaan magaalada la jooga waqtigu wuu badan yahay xilli kasta is arki kartaan xilli kasta wax u sheegi kartaa laakiin waajibka lagaaga baahan yahay adiga ku saaran waa inaad gudataa kaliya aniga markaan u tagaayay wallaahi yani qof aqoon dheeraad idin dhaxaysa waa uguma tegin isku jifaatiin ama isku qabiil baatiin uguma tegin waayo adduunkan baa wax lagu yahay walaalo anyway muuqaalka inaan kusii dheeraado ma rabo waxaan jeclaysta kaliya inaan inta iyada ah
aan bayaaniyo hadduu ilaahay yiraahdo inta ayuu muuqaalkan ku egyahay walaashayna waxaan leenahay usoo duceyno ducada ayaa muhiim ah aan usoo wada duceyno meel walbo dunida aad ka joogtid haddii muuqaalkan kusoo gaarana u sheer garay asxaabtaada si walaashayn loogu soo duceeyo ilaahay saqiirka saqiir jannad Allah uga dhigo sabir iimaan buuxana Allah ka siiyo insha Allah tacaala muuqaalka xigeentan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh